bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada janalka maalmaha. waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso mudan in lagu cibro qaato. ruux waayeela oo faqiira ayaa wuxuu joojiyey nin tagsiilaha oo waddada marayay, wuxuuna ka codsaday inuu gurigiisa u sii dhoweeyo, wuxuuna u sheegay inuusan haysan wax lacaga. ninkii tagsiilaha ahaa ayaa ku yidhi si ay ku jirto xushmad, soo kor gaarigayga, niyaddana khayr u sheeg, wax lacag ahna kaama doonayo. ninkii tagsiilaha ahaa markii uu geeyey ninkii odayga gurigiisa ayaa waxaa ku soo cararay carruurtiisa, waxayna ku yidhaahdeen aabbow, wax quraaca ma noo keentay saakay. aabbihii ayaa ku yidhi carruurtiisa isagoo xishood ka muuqdo, islamarkaana aan doonayn inuu ogaado ninkii tagsiilaha ahaa, maya carruurtayda waxba sooma helin saakay. ninkii tagsiilaha ahaa ayaa hadalkii maqlay, wuxuuna dareemay in reerkani ay daruuf adag ku nool yihiin. islamarkiiba wuxuu aaday suuqa, wuxuuna u soo iibiyey bac rooti ah, wuxuuna siiyey carruurtii. isaga oo taagan halkii uu rootiga ku siinayay ayuu wuxuu arkay carruurtii oo hal daqiiq ku dhammaysay bacdii rootiga ahayd gaajada hiise darteed. ninkii tagsiilaha waa uu iska soo tegay, isagoo indhihiisa ilin ka muuqato, wuxuuna iska soo aaday magaalada. isaga oo waddada marayo ayaa waxaa joojiyey ruux dalxiise ah, wuxuuna ku yidhi waxaan rabaa inaad garoonka diyaaradda i geyso. ninkii ayuu ka soo qaaday halkii. markii uu geeyey garoonka ayuu ninkii wuxuu u soo bixiyey 2,000 oo baan. sida caadiga ah tagsiga wuxuu ku tagaa garoonka lacag dhan ilaa 500 oo baan, balse nasiib wanaag abaalkii uu u galay ruuxii waayeelka ahaa ayaa alla meel kale isagana ka siiyey. isaga oo taagan garoonka dhexdiisa ayaa waxaa haddana u yimid ruux kale oo dalxiise ah, wuxuuna ka codsaday inuu geeyo hoteel caan ah oo ku yaala magaalada dhexdeeda. markii uu geeyey hoteelkii ayaa ninkii wuxuu siiyey $100. kadib ninkii tagsiilaha ahaa wuxuu soo iibiyey raashin fara badan, wuxuuna soo saaray gaarigiisa si uu u geeyo odaygii maskiinka ahaa, maxaa yeelay wuxuu ogaaday lacagtan faraha badan uu maanta helay inay sabab u ahayd ruuxii maskiinka ahaa ee uu saacideeyey. balse inta uusan ka soo bixin suuqa ayuu wuxuu la kulmay ruux ay saaxiib ahaayeen, wuxuuna ku yidhi maanta waxaan kaa doonayaa inaad igala qayb gasho martiqaad aan qabo. ninkii waa uu ka diiday marka hore, balse dood dheer ka bacdi waa uu ka aqbalay. kadibna way soo wada baxeen, waxayna soo aadeen halkii martiqaadka uu ku sameynayay saaxiibkiis. markii uu yimi meeshii martiqaadkii ayuu wuxuu arkay raashin aad u fara badan oo meesha yaallo oo kala nooc ah. kadib way wada casheeyeen. markii ay wada casheeyeen ayaa waxaa soo haray raashin badan oo markaa aan la taaban oo nadiif ah. ninkii saaxiibkiis ahaa ayaa ku yidhi raashinkan xaggii geeya. ninkii tagsiile ayaa ku yidhi aniga ayaa meel geenayo ee aniga ii dhiib. kadib raashinkii ayuu soo qaaday, wuxuuna u keenay odaygii maskiinka ahay carruurtiisa, wuxuuna ugu soo diray raashinkii hore uu soo gaday. carruurtii markii arkeen raashin kala nooc ah oo ka kooban digaag, malaa iyo macmacaan, kaasoo aysan weligood cunin, waxay bilaabeen inay qaylinayaan, ayna leeyihiin maanta waxaan helnay waxaan weligeen cunin. ninkii tagsiilaha ahaa ayaa markii uu arkay sida ay carruurta u faraxsan yihiin ayuu iscelin waayey. kadibna ilin ayaa ka soo daadatay, wuxuuna yidhi imise jeer ayaan raashin ka dhergnay kadibna aan daadinay ayada oo ay u dhibaataysan yihiin dad badan. allow gabadfalkeenna ha noo qabanin. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.